ay ku jirtaa jawi nabdoon iyo barwaaqo ah iyadoo maanta aysan jirin wax dagaal ah oo ka dhacay marinka Gaza. waxaa sidoo kale jirin duqeymaha oo Israa'iil ay sameynayaan, balse cabsi aad u weyn ayaa waxay ka jirtaa gudaha magaalada Gaza iyadoo markaasi taliyaha ciidamada Israa'iil uu sheegay in markaasi dib loo bilaabi doono howlgal ballaaran oo markaasi ay ku qaadayaan deegaano dhowr ah oo ku yaala marinka Gaza, balse lama ogo goorta ay noqon doonto. laakiin dadka qaarkood waxa ay timinayaan in markaasi colaad cusub ay abuureyso Israa'iil iyadoo doonaysa markaa in heshiiska xabad joojinta ay jabiso. waxaana sidoo kale laga cabsi qabaa in markaasi dhibaato kale oo hor leh ay geysato Israa'iil maadaama heshiiskii xabad joojinta uu dhaqan galay maalintii labaadna uu galayo. sidoo kalena waxaa laga cabsi qabaa in markaasi dadka ay gacanta ku hayso ay si laba jibaarmaan. dadka Falastiin ee markaa guryahooda ku noqonayo ayaa waxay tilmaamayaan in magaaladu ay u eg tahay magaalo horor ah ama laga cabsanayo maadaama burburka soo gaaro uu yahay mid laxaad leh. dadka qaarkood ayaa ku tilmaamaya markaasi inay tahay goob la burburinayo guud ahaanteeda oo loogu talagalay in markaasi mar dambe haysan dadkan ku soo laabanin deegaanadaasi. dadka qaarkood ayaa markaasi guryahooda ku noqday, waxaana la helay ilaa 97 qofood oo meedad hor leh oo markaasi laga soo saaray guryaha dudumay, iyo sidoo kale dadka qaarkood oo markaasi dhaawacyo soo gaaray aawadood u dhintay. waxyaabaha qaarkood ee markaa halka laga soo tabinayo waxaa kamid ah in markaasi Xamaas ay sheegtay dadkii la haystayaasha ahaa ee la sii daayay ee 90 qofood ah Israa'iil ay haysatay in wajiyadooda iyo jirkooda ay ka muuqatay dhibaato aad u weyn oo markaasi ay u geysteen ciidamada Israa'iil oo ay kamid tahay dacadiyo iyo sidoo kale dhibaatooyin oo markaasi jir ahaaneed ay u soo gaareen, sidoo kale maskaxiyan. dadka la soo daayay waxa ku jiray caruur iyo haween iyo markaasi dad ah oo waayeel ah. haddaba waxyaabaha qaarkood ee markaasi Israa'iil iyagu laftigooda ay sheegeen, Xamaasna ay ka sheegeen, waxaa kamid ah in Israa'iil 3 qofood ee loo sii daayay ee haweenka ah ama dumarka ahaa ay dhammaantood caafimaad qabaan, sidoo kalena dharkooda uu yahay mid nadiif ah. halka Xamaas ay sheegtay in dadka jirdil loo geystay, sidoo kalena jirkooda uu ka muuqdo dhaawacyo iyo dhibaatooyin weyn ay u geysteen Israa'iiliyiinta, sidoo kalena ay ka muuqato markaasi daal iyo rafaad iyo dhibaato badan oo markaasi loo geystay dadkii la sii daayay 90 qofood ah. dhinaca iyo Xuutiyiinta waxa ay ka hadleen markaasi dagaalka lagula jiro Israa'iil. waxay tilmaameen in haatan waxay ka bilowda haddii markaasi heshiiska uu dhaqan galay iyaguna ay nabadgelin doonaan maraakiibta maraya badda cas, sidoo kalena markaasi ammaanka baabul mandab uu noqon doono mid la isku haleyn karo. haddii markaasi heshiiska uu jabana iyaguna halkooda in ay kasii bilaabi doonaan ayay Xuutiyiinta Yemen markaasi ay tilmaameen. waxay sidoo kale ka hadleen in Israa'iil ay markaasi dhaqan geliso heshiiskaasi haddii ay ka laabatana markaasi dagaalku uu sidiisa u bilaaban doono, halkeediina uu kasii bilaaban doono. baabul mandab ayaa waxa ay tahay marin markaasi aad u muhiim u ah oo markaa maraakiibta ay isticmaalaan. shirkadaha waaweyn ee markaasi soo saara maraakiibta amaba ka ganacsada wadadaasi badda cas ayaa tilmaamaya in haatan ay isku dayayaan in dib ugu laabtaan marinkaasi badda cas, walow dadka qaarkood ay cabsi badan ka muujinayaan in markaasi Xuutiyiinta Yemen ay weerar ku qaadaan. balse Xuutiyiintu iyagu arintaas ka hadleen, waxayna tilmaameen in maadaama nabadi ay markaasi qaadatay Israa'iil iyaguna ay nabadda qaadanayaan oo markaasi heshiiska aysan burburinaynin, dhibaatana aysan u gaarsiin doonin maraakiibta isticmaalaya baabul mandab. waxyaabaha iyagana ka soo kordha daawadayaal halkan ayaynu idinkugu soo gudbin doonaa. waad ku mahadsantahay daawashada iyo la socoshada wararkeena.